hargeysa maxaafadaha yaryar iyo daa'ibadaha daaroodku degayaad u taqaanaad magaalooyinka u haysataan hargeysa New York iyo Washington DC iyo ayay la tartamaysaa labada buurood ku dhex taala ma hargeysa meesheeda labada buurood ku dhex taala inaadeer hargeysa 3 milyan baa meesha yar ku nool meesha yar dhaqaalaha yaala meeluu yaala ma jirto meesha yar aad arkaysaad sheegaysa waa janno meeshaas waa meesha adduunka ka xukuno inta yar ee imika tijaarka ciidagala daraata xariga madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland uu ka jaraayay 720 milyan baa lagu dhisay guryaha yar halka la soo dhigayo kaliya hal nin baana dhistay hargeysa it is the fucking beautiful city in horn of Africa wariya reer Sheekh Isxaaq baa maal gashtay reer baa iskale waa caasimad dekada barbaraad aragtayna hal reer baa iskale iska maal gashtay adeero dadkan waa dad tashtay reerka qura Soomaaliya sheegaysa kara waa hawiye oo kaliya oo caasimada Soomaaliya waa reerka qura ee hargeysa 3 milyan ay ku nooshay haysta waa naga reerka labaad ee caasimada Soomaaliya oo 3 milyan iyo googo ku nool yihiin haysta waa hawiye Somaliland iyo hargeysa cidda qurux badnaysiisay dhaqaale gelisay hormarisay waa reer Sheekh Isxaaq la sacaanood oo gagi banaana oo bus ka kacayo 2007 markii Somaliland timid wariya 15 sano Somaliland gacanta ku haysay magaalo weekaatay bilaadan boo weekaatay biyo nadiifa filtaradii biyaha la sameeyay laamiyo wadooyin hospitaalo iskuulo intaba waxa maal gelin reer Sheekh Isxaaq waa cashuurta wariya magaalada hargeysa iyo burciya berberiya laga soo qaado dhaqaalaha oo haysana tijaarta Soomaaliyeed baanu nahay intaha Soomaaliyeed baanu nahay dadka Soomaali wax haysta waa annaga cid quran wariya haddaad eegto Telesom haddaad eegto bariiska cidda soo dejisa haddaad eegto raashinka cidda keenta haddaad eegto petrolka cidda keenta haddaad eegto dekada ugu qaalisan ee Soomaaliba leedahay waa annaga marka Djibouti laga reebo dalka Djibouti magaalada Djibouti wadanka Djibouti marka laga reebo dekada labaad ee Soomaaliyeed ee ugu weyn waa annaga cid kale ma waa reer Sheekh Isxaaq qabiil ma nihin qoomiyad baanu nahay xawaaladaha ugu waaweyn baanu leenahay isgaarsiinta ugu waaweyn Soomaali baanu leenahay ganacsatada ugu waaweyn geeska Afrika aanu leenahay naagta qure bilyaneerada ah ee ku nool East Africa waa gabadh ku nool wadanka Uganda waana gabadh reer Sheekh Isxaaq dayuuradaha ugu waaweyn ee Soomaaliyeed baanu leenahay ee duulaha wada mara weligii baanu lahayn wariya daalo iyo saasaad u eegi jirtay waana ku dulmari jirtay reer Sheekh Isxaaq baana wana dayuurada ugu horeyso Soomaali lahayd dayuuradaha Kenya ee brefatka ah ee aad aragtay fly blue iyo waxa la yiraahdo wiil Musa Cabdallah ba iska loo reer Sheekh Isxaaq hargeysa ku dhashay hargeysa ku barbaaray hargeysa wax ku bartay hargeysa ku dhaqday hargeysa ku dhalay hargeysa la igu dhalay maaragtay malaha wadkun baanan hubi iyadoo malaha ku dhiman doona iiga hoboladiisiyo heesaga aan baxay halkii lagu habeeyey fanku heer ku gaadha hooygii murtidayo hooyadii abwaanka hooygii murtidayo ku bartay maalin khayr leh kugu beelmay ku bandhigay jacaylka baciida igu tiri bishaar bogaadin farxad bururay alla bururay goorta bilaahi ku bartay maalin khayr leh kugu beelmay ku bandhigay jacaylka baciida igu tiri bishaar bogaadin farxad bururay alla bururay goorta bilaahi mahalkii dharartii casrigii moodiga dad hargeysa soo maray lalalalan hadiyadaygu dhiiba ma hoygii jacaylkee